kulankan oo ka mid ahaa kulamada caadiga ah ee ay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku dhageystaan warbixinada laga soo diyaariyo xaaladaha ay ku sugan yihiin wadamada ayaa xubnuhu waxay warbixin kaga dhageysteen wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan. waxaa kaloo warbixin laga dhageystay madaxa howlgalka midowga Afrika Ambassador Francisco Maidera. Mr. Swan ayaa golaha u faahfaahiyay warbixin uu xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ka soo diyaariyay xaaladda Soomaaliya oo eegaysa dhacdooyinkii siyaasadeed kuwii amni iyo dhaqaale ee Soomaaliya laga soo bilaabo 4 bishii May ee sanadkan ilaa iyo 4 bisha August. Mr. Swan ayaa sidoo kale ka hadlay shirka Dhuusamareeb. waxa uu sheegay in hanaanka wadahadalka uu yahay xalka kaliya ee looga gudbi karo caqabadaha siyaasadeed ee hadda hor yaala Soomaaliya gaar ahaan doorashada. waxa uu yiri madaxweyne Farmaajo iyo 3 ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ayaa ku noqday shirka Dhuusamareeb si loo sii amba qaado wixii lagu heshiiyay shirkii hore. waxaan ku celinayaa inaan aad uga xunnahay kuwa weli ka maqan. Mr. Swan ayaa ku dheeraaday xaaladda siyaasadeed ee dalka oo uu sheegay in mushkilad dhinaca dastuurka ah iyo maxkamaddii dastuuriga oo aan dhisnayn oo uu sheegay in shaki ay gelin karto in waqtigii loogu talagalay ay ku qabsoonto noocyada doorasho ee dastuurka ku xusan. waxa uu ka hadlay ammaanka Soomaaliya oo uu sheegay in Al-Shabaab ay bilowday weeraro cusub oo ay ka geysanayso Muqdisho iyo meelo kale si ay u carqaladayso buu yiri horumarka Soomaaliya iyo nabadgelyo ay helaan dadka Soomaaliyeed. sidoo kale waxaa golaha ammaanku uu warbixin ka dhageystay madaxa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Maidera. shirkii 15 ka bilowda Dhuusamareeb buu yiri waxaa ka maqan 2 ka mid ah hogaamiyaashii muhiimka u ahaa. sidaa daraadeed beesha caalamka iyo saaxiibada Soomaaliya waxaa uga bannaan door sidii shirkaasi uu u noqon lahaa mid laga wada qayb galo. labada mas-uul ayaa sidoo kale soo hadal qaaday wadahadaladii Soomaaliya iyo Somaliland ay ku yeesheen dalka Djibouti iyagoo booriyey in la sii amba qaado. kulanka oo weli socda ayaa waxaa sidoo kale lagu casuumay safiirka Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay.